shalay waxay ahayd maalin kale oo ay fiidantay wada shaqayn xumada ka dhaxaysa hay'adaha dawladda ee federaalka iyo sida ayna u jirin isla xisaabtan dhab ah. kadib isqabqabsi hore uga dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda qorsheynta, taliska ciidanka xoogga, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda gaadiidka iyo xafiiska madaxweynaha. markaan waxa isayo maxkamadda iyo hanti dhowrka. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shalay u yeertay hanti dhowraha qaranka Axmed Ciise Guutaale oo weli xasaaniyadiisa haysta. waxay ku eedeeyeen inuu farageliyay madax bannaanida garsoorka iyo inuu hor istaag ku sameeyay qarashaadkii hore u socodsiinta howlaha maxkamadda. hanti dhowraha oo ka jawaabay warqadaha maxkamadda ayaa sheegay inay maxkamadu hor istaag ay ku sameeyeen baaristii sanadeedka ee qorshaysneed. wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay xafiiska hanti dhowraha inay dembiye maaliyadeed ay ka dhaceen maxkamadaha dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay. haddaba aan dhowr qodobood u kala qaadno doodaan. kow, baarista. maxkamadaha in la baaro waa sharci sababtoo ah waxay qaadaan waa lacago. qaar ka mid a madaxdii hore waxay inoo xaqiijiyeen in la baari jiray in haddii baaristii la diidan yahayna ay keenayso tuhun cusub. muddo dhowr sano ah lama baarin maxkamadaha maadaama madaxdii hore ee maxkamadaha ay baarista ay ogolaan jireen. kuwa hadda joogana waxaa laga rabaa in ay baarista ay aqbalaan. labo, joojinta qarashaadka. mid ka mid a eedaha maxkamadda ayaa ahaa inuu xafiiska hanti dhowrka uu joojiyey qarashaadkii socodsiinta howlaha. tani waa awoodda sharciga ee hanti dhowrka. ma cusba in qarashaadkii laga joojiyey xafiis walba oo diidan in la baaro. saddex, midda maxkamadeynta hanti dhowraha. sharciyaqaanada qaarkood waxa ay leeyihiin si ay hanti dhowraha loo maxkamadeeyo waa in ay xasaanadda marka hore laga qaado. codsiga maxkamadda kuma soconin guddiga maaliyadda ee baarlamaanka iyo madaxweynaha xukuumadda. sidaa darteed ayna hanti dhowraha aynan ku qasbanaaneyn inuu ajiibo u yeeridda maxkamadda. waa dooda ay qabaan qaar ka mid a sharciyaqaanada ka faallooda arrintan. afar, iyada uu dalka uu ka dhacay boob xooggan oo lagula kacay hantida qaranka oo si aanan qarsoonayn loo iibsaday. carwa taleex, baar taleex, dhulkii howlaha guud, dhulkii ay lahayd hay-adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka, midii ay lahayd wakaaladda biyaha, dhul uu lahaa ciidanka xoogga dalka iyo kuwo kale oo badan oo uusan xafiiska hanti dhowrka uusan wax ka qabanin waxna ka dhihin inuu maanta yidhaahdo waxaan baaraynaa maxkamadaha. waxaa loo arkaa mudnaan aan la hubin in xafiiska hanti dhowraha uu ku ciyaarayo aqalka shacabka Soomaaliyeed. shan, kaalinta madaxweyne xasan sheekh. waxayna loo xaqiijiyey inuu madaxweyne xasan sheekh uu dhibsaday sida ay hay-adaha dawladda iskugu ereynayaan shacabka Soomaaliyeed dhexdooda iyo inuu la hadlay labada xafiis ee maxkamadda gobolka iyo tan hanti dhowrka uuna u sheegay inay tilaabo dambe aysan qaadi karin intuu isaga ka imaanayo. xasan sheekh loogama baranin inuu xaliyo khilaafka dawladdiisa ee dhex yaallo oo markaan gaaray inay shaqooyinka qaarkood ay u curyaamaan wuxuuna sugayaa inay si dabiici ah iskaga xalismi doonaan. waxaana hadda la eegayaa siduu arrinkan u maareeyo maadaama ay dhinacyada ay qaadeen tillaabooyin culculus. dagaalkan waa midka koowaad ay isku saf ay noqdeen maxkamadda gobolka, midda racfaanka, maxkamadda sare iyo xer ilaalinta, halka aynan jirin hay-ado kale oo dawladeed oo la safan xafiiska hanti dhowrka ee qaranka. haddaba sidee u aragtaa adiga?